subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba ilhaan cumar oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka minnesota ayaa shaaca ka qaaday inay u tartami doonto aqalka hoose ee koongareeska maraykanka waa kursigii uu ku fadhiyey keith ellison oo ah mudanihii ugu horreeyey muslina ee koongareeska maraykanka loo soo doorto mudane ellison ayaa sheegay in kursigaasi uu bannaynayo isagoo doonaya inuu u tartamo xeer ilaaliyaha guud ee gobolka minnesota warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascade ilhaan cumar warbaahinta kula hadlaysay gudaha xafiiska isdiiwaangelinta ee musharaxiinta doorashooyinka gobolka minnesota ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay inay isu soo sharaxdo kursigii uu baneeyey mudane keith ellison. I am excited to go and be a voice for the voiceless at the Capitol and make sure aad baan ugu faraxsanahay inaan tago koongareeska oo aan cod u noqdo kuwa aan codka lahayn aniga oo hubinaya in aan la imaado dagaalkii adkaa ee aan la imid maalinkii koobaad. ilhaan cumar ayaa xustay inay dalka maraykanka qaxootinimo ku soo gashay oo ay garanayso baahida uu qabo qoyska danyarta ee maraykanka ee doonaya inuu helo dugsi qiimihiisa layska bixin karo iyo shaqo wanaagsan oo nolosha qoyska ku filan. ilhaan cumar ayaa sheegtay inay muddadii koobneed ay ka tirsaneed golaha sharci dejinta ee gobolka minnesota ay muujisay karti iyo hoggaan wanaagsan sidoo kalena ay diyaar u tahay inay dadka minnesota oo dhan ay si hufan ugu doodo uguna matasho golaha sharci dejinta ee waddankan maraykanka. I have proven myself to be someone who shows up, takes on the hard fight and delivers. waxaan caddeeyey inaan ahay qof soo baxa dagaal adag gala natiijana keena waxaan diyaar u ahay in isla wixii aan sameeyey aan hadda u sameeyo dadka degan degmada shanaad iyo dadka degan gobolka minnesota. xildhibaan ilhaan cumar oo ila socdeen taageerayaasheeda oo soomaali u badnaa ayaa sheegtay inay halkeeda kasii ambaqaadi doonto magacii wanaagsanaa ee keith ellison iyo weliba howlihii wanaagsanaa ee gobolka minnesota u qabanayay muddadii 12 sano ahayd ee uu aqalka koongareeska ee waddanka maraykanka ka tirsanaa. I look forward to carrying on the legacy of Congressman Keith Ellison, who has been fighting for. waxaan u hanqaltaagayaa inaan sii wado taariikhdii mudane Keith Ellison asagoo dhammaanteen inoo dagaalamay dagaalkaasi oo aan ahayn koongareeska keliya ee xataa halkan ayada oo cod kasta uu ku xisaabsan yahay cod kastaana uu macno ku fadhiyo. kursiguu baneeyey keith ellison ayaa waxaa ku soo jabay musharaxiin aad u badan oo gaaraya 10 kuwaasi uu ka mid yahay jamaal cabdulaahi oo ka tirsan jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota islamarkaasina ha falanqeeyey wax ka qora arrimaha siyaasadda ee gobolkan. jamaal ayaa horaantii sanadka mar uu keith ellison isu soo taagay guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ayaa isna waxa uu shaaciyey inuu isu soo sharaxayo kursiga keith ellison isagoo markaa rajo ka qabay inuu keith ellison ku guulaysto hoggaanka dimuqraadiga oo uu kursiga banneeyo walow keith ellison doorashadaasi looga adkaaday. dhinaca kale kursiga ilhaan cumar ee gobolka minnesota ayaa waxaa isna musharaxiinta isu soo taagtay ka mid ah maxamuud nuur oo horey ilhaan cumar uga guulaysatay. maxamuud mascade v o a minnesota.